kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isarag maqalkeena idiin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaalo culus oo weli ka socdo deegaanka Axmaarada gaar ahaan gobolka Wolo halkaasi oo isku farasaareen maleeshiyaadka Axmaarada ee Fano iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka Owele oo taageero ka helaya shacabka degan gobolka Wolo waxaana dagaaladu haatan ay ku fideen deegaamo aad u tiro badan oo ay kamid tahay magaalada Dazai iyo sidoo kale magaalada Gondar halkaasina waxaa laga soo sheegayaa in dagaalo aad u weyn ay ka qarxayeen waxaa sidoo kale soo galay ayaa la sheegayaa dagaalyahanada ururka TPLF oo ayagana dagaalka qayb ka waxayna si weyn iskugu fidiyeen xuduudda deegaamada Axmaarada iyo sidoo kale Canfarta sidaana waxaa sheegay afayeen u hadlay ururka TPLF sidoo kale David Cannon oo ah 67 jir taageersanaa ama taageero u ahaa madaxweynihii hore Donald Trump ayaa qirtay in uu Ilhaan Cumar u diray fariin sanadkii 2019 asagoo ugu hanjabay inuu madaxa ka toogan doono waxaana haatan uu si cad u qirtay cadaawadda weyn ee uu u qabo Ilhaan Cumar waxaana uu ka hor qirtay ayaa la sheegayaa maxkamad weyn oo ku taalo dalka Mareykanka wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa siisay digniintii ugu dambeysay dagaalyahanada dalka Ukraine ee ka dagaalamaya halkaasi waxayna gabi ahaanba ay sheegeen in ciidamada dalka Ruushka in ay gabi ahaanba joojiyaan oo ay soo dhiibaan haddii kale waxa uu sheegay inay la kulmi doonaan cawaaqib xumo waxaa sidoo kale saraakiisha laamaha ammaanka ee dalka Ruushka ay sheegeen ama ay ku soo celcelinayaan maalmihii ugu dambeysayba in ay gabi ahaanba ciidamada dalka Ukraine ay iskaga huleelaan gobolada Donbas iyo sidoo kale goboladii ay inta badan ciidamada dalka Ruushka lagu sii daadgureynayay waxayna sidoo kale la sheegay in Ruushku kadib markii uu ku fashilmay qabsashada magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine haatan uu isku fidinayo gobolada uu asagu ugu dhawaaqay madax banaanida iskiisa daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan balse intaasi ka hor haddii ay tahay markaadii kugu horreysay barteena YouTube-ka aad soo booqato barnaamijka subscribe saar oo sii share garee sifa aan u helo asxaab wanaagsan oo idinkoo kaleeta aad iyo aad baad mahadsantihiin dagaalo xoogan ayaa ka socda dalka Ethiopia halkaasina waxaa isku farasaaray labada jabhadood ee ururka Owele iyo sidoo kale ururka Fano oo ka helaya taageero ayaa la sheegay ciidamada Axmaarada ee deegaanka Axmaarada ee Liyuga waxaa maalmihii ugu dambeysayba labada qowmiyadood la sheegay in ay istaandaansanayeen ayadoo dad aad u tiro badan oo rayda ay iska laayeen haatan dagaalku waxa uu ka bilowday ama ka qarxay gobolka Wolo oo ah deegaan muhiim ah kaasi oo xooga TPLF markii ay dalka dagaalada ba'ani ay ka wadeen ay halkaasi isku soo bursadeen halkani waa buuraley iyo beeraley waxayna haatan u muuqataa in dagaalyahanadu ay si weyn isku farasaari doonaan kumanaan shacaba ayaa iskaga qaxay guryahooda iyagoo naftooda kala baxsanaya colaadda halkaasi ka socoto dagaalka ayaa haatan waxa uu ku qarxay ama uu si weyn uga socdaa deegaamada xuduudda la magaalada Daze iyo sidoo kale magaalada Gondar halkaasi waxaa la sheegayaa in dagaalyahanada ururka TPLF ayaguna ay isku soo fidinayaan ayagoo mar walba ku soo siqayo magaalooyinkan Gondar iyo Dazai oo haddii ay xoogani soo galaan xaaladdu ay ku adkaan doonto dagaalyahanadan iyo sidoo kale shacabka halkaasi ku dhaqan dowladda federaalka Ethiopia ayaa sheegtay inay ciidamo dheeraad ah halkaasi geyn doonto sifa loo kala dhaxgalo jabhadahan iyo halkaasi ku dagaalamaya dowladdu waxa ay si weyn ula safan doontaa baa la leeyahay ciidamada Fano iyo ciidamada deegaanka Axmaarada walow ururka Owele ay dowladdu u aqoonsatay inuu yahay urur argagixiso dowladdu ma kala dhaxgali doonto waxay si weyn ula safan doontaa ama dagaal ay ugu qaadi doontaa ururka Owele balse shacabka degan gobolka Wolo waxay taageero weyn ay u hayaan ciidamada ururka Owele maadaama ay shacabku inta badan yihiin ama ay u badan yihiinba qowmiyadda Oromada haatan dowladda federaalka Ethiopia ma aysan sheegin goorta rasmiga ay ka qayb qaadan doonto dagaalka halkaasi ka socdo balse maxaa laba filaana in dowladdu ay ciidamo ku daabuli doonto maransa u dheereen maadaama dagaalku loo maara la'aa oo dagaalku uu socday in ka badan 18 bilood haatan dowladdu waxay tabar u lahayd ururka Owele oo kula dagaalamaysay deegaamada Oromada balse haatan haddii dagaalku uu ka qarxay deegaanka Axmaarada waxa ay u muuqataa in dowladdu ay codsan doonto
ciidamo dheeraada kuwaasi oo ka kala codsan doonto wadamada saaxiibka ay la tahay ay ka mid tahay Eritrea iyo sidoo kaleeto wadanka Kenya. waxaan ogeyn in ciidamo aad u tiro badan ay Eritrea ka joogeen gudaha dalka Ethiopia, balse codsigii qaramada midoobay iyo sidoo kaleeto xulafada Ethiopia ay dib uga gurteen meelihii ay ku sugnaayeen. waxaan ogeyn inay socotay iyaduna waan u dhaxaysa ururka TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia, balse gebi ahaanba waxaa saaxadda ka bixi doonto wadahadalladaasi maadaama dagaalo kaleeto oo ayagu aan TPLF qayb ka ahayn maadaama ay ka qarxeen deegaamadii ururka TPLF ay iskaga huleeleen. haatan ururka TPLF ayaa la sheegayaa inay ku soo siqayaan gudaha deegaanka Axmaarada iyo kan Canfarta, waxaana la sheegay inay gebi ahaanba isku fidiyeen deegaamada xuduudda dhaca ee Canfarta iyo sidoo kaleeto deegaanka Axmaarada, waxaana haatan ciidamadu ay si talantaaliya u soo gelayaan gudaha deegaamadaasi. dagaalada Ethiopia intaasi aan ku dhaafne waxaa iyadana dagaalo xoogani ay ka socdaan dalka Ukraine, waxaana dagaalyahanada ama ciidamada difaaca ee dalka Ruushka ay sheegeen digniintii kama dambaysta ahayd ee dagaalyahanada Ukraine kuwaasi oo ku sugan dhismo warshadeed oo ku yaala magaalada Mariupol ee dekedda. magaalada Mariupol waxaan ogeyn in ciidamo aad u tiro badan oo dowladda Ruushka ay leedahay ay halkaasi joogeen, waxaana la sheegay in ay halkaasi ku dhinteen in ka badan 10,000 oo qof oo shacaba, waxaana haatan ciidamadu ay u muuqdaan kuwo u soo dhowaanaya gudaha dhismaha lagu sheegay inay ku sugan yihiin ciidamada dalka Ukraine. waxaan ogeyn in ay taageero weyn ay ka helaysay wadamada reer galbeedka, balse dowladda dalka Ruushka ayaa sheegtay in ay gebi ahaanba ka saari doonto meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dalka Ukraine. hase ahaatee dowladda Ruushka ayaa la sheegay inay cawaaqib xumo iyo jab weyn kala kulantay qabsashadii iyo isku daygii ay isku dayeysay magaalooyinka waaweyn ee Kiev iyo sidoo kaleeto magaaladii Kherson iyo magaalooyin aad u tiro badan oo ay ka mid tahay caasimadda labaad ee waddanka, waxaana la sheegay in gebi ahaanba ciidamada Ruushka ay halkaasi ku jabeen, haatanna ay u ruqansadeen gobolada ay ayagu gooni istaaga ugu dhawaaqeen ee ka mid tahay Donbas, waxaana haatan ciidamada Ruushka la sheegayaa inay isku arursadaan halkaasi ayna duulaan xoogan ay ka soo qaadi doonaan. ugu dambeyntiina ninka cunsuriga ee loo yaqaana David Hannon oo 67 jir ah taageerana u ahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qirtay inuu Ilhaan Cumar u diray fariin sanadkii 2019 asagoo ugu hanjabay in uu madaxa ka toogan doono. ninkan oo ka soo jeeda Florida ayaa talaadadii maxkamadda horteeda ka qirtay in uu xildhibaan Ilhaan Cumar ugu hanjabay in uu dili doono sida uu ku cad qoraal uu u diray Ilhaan Cumar. saatee Ilhaan Cumar ayaa xisbiga Republicanka iyo sidoo kaleeto dadka taageersan kala kulmaysay fadeexado iyo sidoo kaleeto hanjabaado ka dhana markasta oo ay khudbad jeediso. Ilhaan Cumar ayaa lagu yaqaanay hadalka keenaan iyo sidoo kaleeto taageerada ay u hayso muslimiinta iyo sidoo kaleeto dadka laga tiriya badan yahay. waxay marar badan la kulantay falal argagax leh kuwaasi oo ay ku jireen hanjabaado iyo sidoo kale gacan qaadyo ka dhashay dad isku imaada. si kastaba haatee Ilhaan Cumar ayaa haatan helayso taageero buuxdo oo ay ka helayso bulshada ayada soo doorato iyo sidoo kaleeto gobolka ee ay degan tahay Minnesota, waxayna haatan ku hawlan tahay sidii ay u maxkamadayn lahayd dadkii dhibaatada u geystay ay ka mid ahaayeen xisbiga Republicanka iyo sidoo kale dadka taageersan. daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulanti dambe wacan, waxay naga tegaa sidaas iyo ammaane Allah.